kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena sharafta leh oo kuna soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo hadaan oo aad kaga barateen barta naxariis TV kuna soo dhawaada waxaan haynaa faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya fanaanadii ku xanuunsanaysay magaalada Hargeysa Yurub Kenya waxay kamid tahay fanaaniinta xidigaha geeska ee fanka waxaana la sheegay in ay ku xanuunsanayso magaalada Hargeysa kadib markii isbitaalka loola cararay waxaana la sheegay in ay qaliimo fara badan lagu sameeyay kadib markii ay xanuunsatay maanta waxaan warbixin dheeraad idinkaga haynaa الفنان يوروب كينيا oo xanuunsanaysa kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada Yurub Kenya ayaa la sheegay in ay ku xanuunsanaysa magaalada Hargeysa kadib markii uu xanuun soo gaaray dhanka jirkeeda aan iraahday wad maasantiin dhamaantiin kuna soo dhawaada waxa la sheegay in uu booqday fanaankii weynaa Maxamed Saciid Biiki oo ku booqday isbitaalka kadib markii uu xaaladeeda soo ogaanay waa sida la sheegay Maxamed Mubaarak ayuu la magac baxay alfanaan Maxamed Biiki kadib asagana fanka markuu siga baxay waxa la filayaa in ay iyadana fanka kama siga baxdo kadib markii ay ku gacan seertay fanka inay siga baxdo waxayna ku dhawaaqday inay siga baxdo iyadoo ku guda jirto inay ka baxdo ayuu xanuun soo gaaray balse haatan waxa laga rajo dhigayaa nolosheeda warar ma jiraan sheegay in ay iyada tahay qof markaas fanka ka bixi doonto waa sida la sheegay waxaana la yiri haatan xaaladeeda way adag tahay balse waxaan ku guda jirnaa in aan daawooyin iyo waxba oo qorno waa sida la sheegay warar gaar ah ayaa soo baxaya haatan la sheegay in ay caafimaad qabto oo ay sidii hore dhaanto wixii faahfaahin oo soo kordhane waa anigoo ah Maxamed online halka nagala soconataan waa Naxariis TV waan idin soo dhaweynayaa wixii soo kordho war waa anigoo Maxamed waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wad mahadsantiin dhamaantiinba subscribe sar page-keena like la dhac wad mahadsantahay la socodka